ان Soomaalida waxa jira dhaqan ay ka siman tahay oo waxa masayr la yiraahdo Soomaalidu ay ka siman tahay marka wax weeyaan nimanka waxa laga yaabaa inuu iminka guursado si kasto jacayl uu si kasto abwaani si kasto caan u yahay en haddana wuxuu leeyahay ma sawir hayla gelin yaan lay ma garanaysa marka reerka iga burburaya xaga bar sawir la gala kaga nimo marka la arko hablaha soo saaraysi oo aad family leenahay اسمها كاسو قالت سوارت marka Soomaalida loo eego habla iyo inamadaba qaar bay la masayr ku tagreedo qof aad la hadashay ama qof aad masayr uga tagtay horta waxa li ninka gabar fiican ama kaamiro fiican waliga ma gaartay dimarooyinka ku ajiibka ragaan uga 40 sano hayay anigu waxaan isleeyahay gabadha qabto marwad dumar way wax fiican bay ku qabat sababtoo ah tii waxyaabaha yar niicda ilma soo doonato hablaay maxaa soo sawirtay hebel ma waliga ma widi waxay tan kula socoto maxay ahayd waxa kalsoon wax ajiib moogta aadeen maaha laakiin rag baa jiro dhahaya saasas baarabti inaan sawir kula galaha suuq wax yar sawir ma geli karaa macaantoy heblaay hebel waxaas waxa weey adeer xagga waa noo shacab iska daldaray lama dulqaadan karo waa tay marwada sahrana sahrana waa salaamina kaliya la baahan kala salaam gadrina en waxaan jecelahay waxa iga cariisii taas waa arrimaha siyaasadda wixii siyaasadda ka cariisii social media ama arrimaha socialismka marka ma taqaan laga hadlayo arab badan laakiin markii aan arko nin siyaasi iska sheeganay waxaan ahay wuxuu sahayn waxa iga cariisii oo rabo inuu maanta oo dhan sheekooyinka juxo oo kaga sheekeeyo marka rawaadaha filimkii digaagga fiirsaday filim sheekada hindi u sheekeeyay waxaan ka xaroodaa aan rabo waxaan ka xaroodaa qof maskiin qof ku shaqaysanay yani xaqiiqsi social media markaad aragtid in muuqaalad adigu leedahay oo daahir ahaantaad inta la jarjar wixii ba laga jeeyo wax kale lagu qoro ma bartaa ka macruud laakiin waxaan ka xaroodaa war fiican baan caawidinayaa ii sheer gareeya soo gaara markaad aragtid waxaan soo galay caaw igu kalifay iyo wadigay soo ma gil caawinaan soo galay waxa uu kalifay waxa ka aqoon mar hore intaynu iswaraysanay ba wixii aad jeclayd oo dabcan ay sheegay wixii aad nabcaydii waxa inta la jarjaray baa la yiri daahir wuxuu jecliyay marka iminka markaynu programkan oo kale ku jirno waxaasa nabcayo kale hadii la isku jarjaro oo wax kale loo qaato ila social media waa taqaanay sidee sayko ila bariga waad xanaaqda sug bariga inta xanaaqday in Allah intii soo gasoo adiga hawada u diray maya fiiri adigu wara soo faa'iiday boodhii Kampala yaa ka bogsotay wara soo faa'iiday waxay yiraahdeen gabadha waa saxaafiyad maxay ku tahay daal soo gabar wadi ka toornay oo dadka baada bempat sheegta qamriga abtaaba la jiri ya taas waa saxaafiyadaba haye dadka dhubala waxay ku jireen ka istaanbay moogta cid u soo dhacdo lawaa markii adigu beenta hajar jaraan oo ka faa'iiday anigu iminka waxba ku sheegaya dadkeena ma taqaana igla waxa soo gashaa live soo gali ama adiga ama ciid waxa soo galaysiin 300 qof baa idin amaanaysa 500 qof baa idin amaanaysa kun baa idin amaanaysa comment ay dad fiican way 100 ama 50 baa idin naya maanta shaashka saa u xiratay iyo shaatiga soo gashay qalad adigu ku dhaliilaya markuu dhaliilo adigu kunka ku amaanay ayaa ka faa'iidaa معناها إلى كيف الصلمة أو كونك سوبها الإنسو واو ماشي كونك ماشي كونك مشغول لك وحلا